maanta waxaan ku suganahay dusha sare ee magaalada Lafaruug ee degmada Sheekh Abdaal ee gobolka Saaxil magaalo aad iyo aad u degan oo aad iyo aad u qurux badan oo sad halka ka aragtaan dhammaan kaabayaasheeda dhaqaale isku filaashiye ka gaadhay iskuulkii waxbarashadii caafimaadkii dooxii banaankii wadadii biriishkii xoolihii iyo beerihii intaba koobsatay weeyaan magaalo aad iyo aad u qurux badan oo halkan markaad soo gaadho un aad dareemi karayso oo bulshada ku dhaqan Somaliland oo dhanaanay ogeyn magaalada yar warkeeda idinma siin karo maanta waxaan u dabaaldegayaa maalinta xuska qaran ee 18 May ee maalinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo muddo yar kooban ay ka harsan tahay sidaa awoodeed ba maanta waxaan jeclaystay calankayga Jamhuuriyadda Somaliland inaan halkan kula dabaaldego waa subax kale oo qurux badan oo aan ka soo jarmaadnay isla markaana aanu ka soo kalahnay magaalada Hargeysa waxaan soo qaadnay Toobiya jidka xidhiidhiya magaalada Berbera iyo magaalada Hargeysa halkan waa goolada ama siirooga looga soo baxo magaalada dhanka galbeed ee bari ee magaalada kadib markaad la soo wareegto waxaad markiiba si fudud ku soo gaari kartaa kantaroolka ama barta kantarool ee ugu horeysa ee bariga magaalada Hargeysa waxaanu soo qaadnay jid aad iyo aad u qurux badan waxaanu soo jeednay dooxyo biriishyo cusub iyo wado si fiican loo habeeyay oo laga faa'iiday maalgashigii shirkadda DB World ay ku samaysay wadanka kadib waxaanu socdaalkaygu maanta uu ku wajahan yahay deegaanka Lafaruug ee degmada Sheekh Abdaal ee gobolka Saaxil deegaankaas oo ah deegaan kheyraadkiisu dihin yahay isla markaana ah deegaan xoolo dhaqato ah dhinaca beeraha hodan ku ah dhinaca buureed iyo macdantaba safarka oo aanu ka soo kalahnay magaalada Hargeysa wuxuu waagu noogu beriyay deegaanka Macaaneeya ee degmada Sheekh Abdaal halkaas aanu ka soo quraacnay saaka kadib waxaanu si fudud ku soo galnay deegaankii la destination-keegu ahaa ama bartayada dambaysa socodkeegu ahaa ee deegaanka Lafaruug saaxiibayaal magaaladan ama tuuladan aan soo gaarnay waxa la Macaaneeya waa meel hoteel caan ah oo ku yaallay hoteelka Macaaneeya deegaanka waa deegaanka aadka u quruxda badan leh isla markaana oo xilligii roobka green noqday ay geedi soo baxeen saaxiibayaal inka waxaan maraynaa magaalada Lafaruug bartankeeda waa magaalo ka tirsan degmada Sheekh Abdaal ee gobolka Saaxil waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn deegaankan waxaan jiray hudheel caan ah oo la Lafaruug restaurant markaana intii aan wadadan la sameyn ka hor ay dadka wadada ku safri jiray aad iyo aad u garanayaan xilliyada cuntadana ay halkan ka cuntayn jireen كم سودو وهذا وحي كورن مقالة تاريخ ذا بالبربحية الرئيسي مقالة تاريخ ذا وقت هاي مقالة كتولين كبريها كسود حيك أو وفعوين اللي بفعوين أو تاريخ وين حقا هاي قد وين بكتاه حتى إلى ضوء فقط سنة وفلوده وانقف يا بربرة يبدأ قبل كوالي مكاو مقالة كما يرد أهان مقالة تاريخية وقسي لما كلا تقالدي أي نقول كلا دولتي يراها ugu badan ee dagaalada ugu waaweyn ka dhacay ayay ku jirtaa ilaa hadda aynu joogno wal helaya afartii dagaalka meesha ka dhacay halkan yareedo soo dhaafnay ee magaalada ku jirta ilaa 1 kiiloomitir iyo bad haday ugu badan dagaalka ugu weyn ka dhacay meesha warka la yiraahdo warka badan la maanta ana deegaanka ugu quruxda badan waxa kale xusub badan yadanaay
jaaco magaaladan sida magaalo kasta oo aan degno ama Soomaalida ay degtaa waxbay caan ku tahay mid beeraha caan ku ah mid xoolaha nool iyo dhaqashada xoolaha caan ku ah mid macdanta iyo dahabka caan ku ah mid kalluunka iyo kheyraadka badda caan ku ah magaaladan maxaa loo odhan karaa caan bay ku tahay magaaladan waxay caan ku tahay xoolaha xoolaha nool bay caan ku tahay hay siiba bahla riyaa la yidhaahdo riyo baalamaya xoolaha riyaa ay aad iyo aad caan ugu tahay nin keliya inuu 500 riyaal 600 riyaal 1,000 riyaal yeesho kun riyaal 1,000 riyaal hay kun waaba yartay qaarkood baa 2,000 iyo 3,000 hay ragday magacooda xusi ka raaxata ayaa anagu xusine ayaa bahalaha riyaa aad u dhaqda hay riyaha aad u dhaqda hay buurtan ku dhowba ayaa sidooda buurahay ku dhaqda waan gartay dhulka cimiladooda kurushahay waan gartay buurtan markaan ku soo soconay goordhow buuli doon waa buur aad u weyn magacooyina way leedahay hagaba la yiraahdo buurta hagaba haye waa dhul wanaagsan oo ku wanaagsan waliba dhaqada riyaha iyo geela waan gartay no xoolaha idaha iyagu halkan kuma dhaqmaan miyaa way ku dhaqmaan laakiin haddana laguma xisaabtan xisaabta ugu badan priority-ga koowaad waa riyaa iyo geel halkan sida caadiga ah dadku xaggee biyaa ka helaan ما إلينا كستوت أيوة مري دردر إلى هدي واحد وأنا الكارت دردر بالكوب بدني دردر بدني صاحن البيت باريكا وقويكا كونفورت إنه كسر قلنا بني متبيا لها صح كسر دينا كستوت كذا بيقول لي اللي بيوقع يسمي بيو بيانو معانا بيو ملح له وصلت أقوى مكان لقيت لقى باريك وديا معانا magaaladu sidoo kale waxay leedahay sabado xafadaha iyo meel walba jira xaggan bariga way ka yimaadaan galbeedkana way ka yimaadaan marka taangiyada halkan saaran meel badan oo biyaha soo tuurada ku jira soo la kuran tahay magaalada biyaha keena waan gartay ilaahay biyo ugu nimcay ku iyo jeelahay ma sha Allah dooxaasi biyo way marayaan waxa dadka aan aqoon waxa moodaya in hadda roob helo warniyo dadkan roobkan daay muxuu dadkiisu halkan maraya muxuu waa durdurkana waana durdur ma sha Allah kala fasid mudan magaalada dooxan ka hooseeyo beeraley beerahaasi ku iyo jeelaal biyuhu marka dadku waxa la oran karaa xoolo dhaqato beeraley ma sha Allah wadada ilbax laakiin kasta dadku yar kala soocan yahay ninka beeraleyda aan xoolo dhaqan aan xoolo inta badan lahayn way yar tahay tiradaas durdurka ma eegna durdurka waa eegaynaa deegaanka asal ahaan ka soo jeedada aan halkan baad ku dhalatay imikana magaalada Hargeysa ayaad ka shaqaysaa ayaad halkaas degan halkaasaan daan ugu imkaata deegaanku ah halkan inaan soo gaaro ma imaad xoorkii laga dhagay dhammaan xagaagii xusuus baa geela lagu xirgeeyaa markaa sidaa wey ma sha Allah waxaan waa biyo durdur ah ma aha biyo daad keenay ilaahay abuurtiisa dhulkan durdurada noocaasa buu leeyahay saaxiibayaal halkan saad ka aragtaan si aan geed miroodka kale loo beerin ayaa geedka baxrasaabka halkan loogu beeray tan waxay ku tusinaysaa in waqti aad u dheer ay dadka deegaankan ay ahaan jireen beeraley isla markaana tacabka beeraha ay aad iyo aad wax ugala soo bixi jireen halkan saydan ka muuqata waa beer waxaan u malaynayaa dooxa ayaa saameyn ku keenay sida laajigeedba beertan looga guuray maxamed waa nin deegaankan ka soo jeeda isla markaana warbixin waafiya bal deegaanka naga siin kara maxamed oo geedkan baxrasaabka ee sida qaadka u baxay bal iga waran isaga warbixin kooban naga siiyo waqtiga inagu yar sidoo kale waxaan halkan ka arkayaa timirtii oo iyaduna aad iyo aad halkaa uga sii baxsan deegaankan guud ahaanba marka timaado dooxan dadku xagga dhinaca beera aad bay uga faa'iidaystaan bal maxamed warbixin yaro kooban iyo dhirtan la jaray ee dib u soo baxday ee aadka u faraha badan leh dooxan baxrasaabkan aad arkayso muddo aanan nimka qiyaasi karin baa la beeray aniga hooyaday waxay ii sheegtay in iyadoo dhalinyaro ah dadkii ay beeray ay ka mid tahay marka dadka deegaanka magaalada Liverpool ee deel ka tirsan ayaa beeray
oo sababta loo beerana sida la sheegay waxa weeye in beeraha uu noqdo geeb si aan geeb baa looga dhigay si aanu daadku u qaadin beeraha marka dooxu ilaaliyaa daadku ma soo dhaafi karo sababtaasaa loo beeray midda kasta manaafacaad badan buu leeyahay inta badan magaalada lafaruug waxay ku tiirsan tahay geedkan baxar saafka la yidhaa meheradahoo kale waababa laga dhisaa sida meheradahoo kale waababka la harsado oo kale ayaa laga dhisaa dee dooxa ilaa iyo magaalada laga soo bilaabo ilaa iyo meel xamaas ku dhow waa lagu beeray dadka beerayna waxa ka mid ah aniga hooyaday awowgay iyo aabbahay dadkaasoo dhan baa ka mid ah dadka deegaankaana iskaa wax u qabso ku beeray maasha allah maasha allah wax aad iyo aad loogu farxo weeyaan geedka inta leego cimri aad iyo aad u dheer la isla markaana in badan jiri kara in dadka deegaanku intay isku tageen ay iskaa wax u qabso ay dhirta intaa leeg ku beereen oo sanaawaad iyo sanaawaad kadib loo aayi doono dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo reer Somalilandna waxaan kula talin lahaa in wax beerashada aad iyo aad loogu dadaalo oo ay dadku wax la soo baxaan maadaama cuntooyinka dibadda laga soo dejinaya aanay caafimaad badan lahayn dadkeennana inta ugu badan dhakhaatiirta markaad tagto aad arki karto xanuunada ay la nool yihiin weliba baryahan dambe ay aad ku sii badanayo macaanka iyo dhiigkarka dadku waa inay wax beertaan oo waxyaabaha dhulka ka soo baxay dabiiciga ay ka faa'iidaystaan baan leenahay aad iyo aad baan idin salaamaynaa bal iminkana durdurkan oo waxaan oo geeda iyo waxaan oo beera lagu dhisay laga waraabiyo ayaan ku qubaysan doonaa isla markaana aan maalkii faraha badnaa aanu kaga raysan doonaa geedkan aad guntiisa aragtaan waa saytuun durdurkaasu ka cabaa hoostana durdurkaasaa ka ah waa kasaa u kala baxbaxay buurta dusheeda aanoo marayan dhagaxa yar ka helay talo dhagaxa yar muxuu noqonayaaba idinla tahay asxaabta dhagaxa yar waa khayraadka magaalada lafaruug weeyaan lafaruug magaalada yar khayraadkeeda weeyaan buurta dusheeda waxaa aad iyo aad ugu badan geedkan oo leeyahay carmadaas aad ugu badan isla markaana green buurta dusheeda waa akhtar ka dhigtay geed aad iyo aad u qurux badan mid yar isabo maqaar lagu salaaxay saameeshe geelaas siduu daaqaya halkuu ka soo koraniyo geelin dee wuu ku dhaqan yahay meesha geelan waxaa la yidhahaa magaciisa ma taqaanaa saaxiibayaal soo dhowaada maanta waxaan ku suganahay buurta dheer ee hebaga ee deegaanka lafaruug magaalada lafaruug ayay xagga galbeedka iyo waqooyigaba kaga beegan tahay buur aad iyo aad u qurux badan fiyugeeduna aad u fiican yahay in badan aanu soo fuulanay ayaan hadda dusheeda sare ugu dambeyn soo gaadhnay muuqaal qurux badan baad halkan maanta kala socon doontaa waa maalin jimca haddii ilaahay ka dhigo qorraxduna aad buu kulushahay oo saad halkaa ka arkaysaan gebigeygu waanu evaporation ahaan baanu baxno umi baxnayba halkan waxaan ugu nimi geel daaqaya oo aad iyo aad u qurux badan isla markaana dabashabeelinaya sidoo kale halkan waxaa ah gebiya weyn oo la yidhaaha dooxan oo la yidhaahda saragti xuma ayaa isaguna bartan ama fiyugan ku yaalla markaa muuqaalka la socda asxaabta iyo akhyaarta iyo daawadayaasha iyo dadka daafaha dunida nagaga xidhan oo dhan
soomaali weyn waxaan leenahay muuqaalkan markuu soo gaadho subscribe saara like gareeya share gareeya channelkana dhulka ka soo kiciya insha Allah biidnillaahi kariim muuqaal aad u qurux badan oo tiyadu aad u sareysan halkan ka daawan doontaan oo deegaanada Soomaalidu degto oo dhan insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo waxaan ku rajo weynahay inaan wada maxamedow geedkan baan arkayaa buurta aad ugu badan geedkan magacii talow geedkan cadaad baa la yidhaahdaa cadaad oo geedka xabagtiisana waa la cunaa haye fiican oo cadcad buu leeyahay haye magaciisa cadaad baa la yidhaahdaa bahalka geela la yidhaahdaa aad buu jecel yahay intaas markay saa u baxday roobka saa ugu soo baxday maxaa la intaa yar qoyan maxaa la magaceeda intee intaa yar roobku imika soo saaray intaa yar qoyan intaa yar uu soo saaray yagal baa la yidhaahdaa waa markuu geelu cunayo yagal niyow dadku waa kala lahjad barigaana waxaa laga yidhaahdaa dabamulacli waa run dadku isku mid maaha oo way kala duwan lahjada waddankaaba aad u kala duwan aad iyo aad saaxiibayaal imika waxaanu nimi fiktan ama dowgan aad aragtaan ayaanu nimi dowgan maxamedow magicii arburahan waxa la isku dhahaa waa xabago oo deegaanka aad arkayso dee buuraha kala duwan mar dul aad u baxayso mar maxay ahayd buur gebiyo noocba nooca haye marka imika dhulka aad arkayso buuraha ee jeexjeexyada leh ee buuraha dadku waa degan yihiin haye meel aanay deganayn male haye dadku dushana waa degan yihiin buuraha guddoosana waa degan yihiin imika halka haddaynu ka quluulno waxaan ugu tegaynaa heero degan adiga arkaya imika heeraha bacda casle dooxan waxaa la yidhahaa magaciisa saragta xumaa la yidhahaa maxaa la dooxan waxaa la yidhahaa imika saragta xume haye ayaa la yidhahaa haye buuraha halkaa inooga muuqda waxaa la yidhahaa hagoogan baa la yidhahaa kuwaase hagoogan leeyaha kuwa hagoogan baa la yidhahaa haye dushan marka laga quluulo waxaa la yidhahaa magaceeda bookh baa la yidhahaa bookh baa dushaa leeyaha dushan imika halka inooga muuqanaysa waa dul aad iyo aad u dheer dushan imika haddayn raacno oon sidaa u soconno diragodlo meel ku toosan ayaynu tegaynaa maxamed waxaad iga warantaa godadka halkaa buurta ka soo muuqda ma bahalaa gala mise dad baa gala may godadkaas waxa weeye godadka ay iska galaan bahalahan xulshada iyo shimbiruhu wax bahalaa buurtu ma leh sida lay sheegay dawaca mooyaane xataa iyo bahalka dhidarka la yidhaa mooyaane dhidarka may leeda dhidar bay leedahay war bilaabana laakiin waraabi ma joogo sida kale waxa cajaayiba buurtan imika aynu joogno xoolaha xero looma sameeyo haddaa xooluhu waxay fadhiistaan waxa weeye waxa ku dhaqan waa riyiye geel haye riyuhu buurtaasay fadhiisanayaan oo heerku intuu halkaas kala dego ayuu wuxuu samaynayaa dabeedna halkaasuu buulkiisa ka dhisanaya ariguna bannaankaasuu seexanaya uu fadhiisanaya waayo bahal male waxba male bahal soo cunayo dee bahalaha dugaagga wax cuna waxa weeye waa libaaxa iyo waraabaha iyo bahalka la yidhaaho harimacadka waxyaabahaasaa cuna xoolaha oo niw dhidarka iyo dacwad maana cunan imika halkan aynu joogno wixii xaggaa ka xiga xoolaha bannaan baa lagu xareeya imika halkan weliba waxaa lay sheegay inay bahal la yidhaaho dacawo keliya tahay ku nooshahay iyo bahalka dhidarka la yidhaha dhidarku maa xoolaha cun ma cuno dhidarkuna xoolaha dhidarkuna waa bahal iska jooga biyahaasun buu cabbaa unoo meelihiisaasu iska jooga laakiin xoolaha asagu ma cuno dadka ma cunaa dadkana ma cuno dhidarka xeebta soo talaaha dadka wuu cunaa dhidarka xeebtu dee waa bahal asagu harraaday oo dee xeeb ku noola bilaabiya laakiin dooxyadan iminka anu arkayno iminka halkaa hore dooxaan halkiisa hore biyay leedahay oo asagu biyihiisa hadduu helo waxba ma cuno inkasta dhidarka xeebta iyo dhidarka halkan isku mid maaha dhidarkina waa dhidar dhogor leh oo bulbul leh ka xeebtuna waa bahal muruxa oo xeebtu ay ka dhigtay yacnihii bilaa dhogor markaa kaasi isagu dadkana wuu cunaa wixii uu xoola arkana wuu cunaa waayo biyuu ka dayayaa marka isku mid maaha xoolahan lama xareeyaad leeda markaa meeshan waa meel cajaa'ib oo xoolaana xero looma sameeyo xoolu bannaankaas iska fadhiisanaya waana geel iyo riyo waxa lagu dhaqaa meeshan iduhu way ku yar yihiin oo ida laguma dhaqo iduhu buurta kama bixi yaqaanaan iduhu inta badan waxay ku nool yihiin dhulalka hawdadka ee bannaanada maaragta ayay ku noolaan karaan marka meeshan waa kulayle waxa ku noolaan karaa waxa weeye waa riyaha iyo geelaasu niw sida nimanka kulaylkan marba ka sii kululaataa may kama kululaato waa sidaasun maanta waayo way ka fiican tahay xeebna maaha dee koonfurna maaha waa meel dhexe oo imika haddaad halkan imika yar meelaha daragodle ku toosanayo markaasaa laga yaabaa inaan kulaylkiiyo xeebtii hanfiga aan u gallo laakiin halkan jawigeedu isma bedelo waa nooca maanta qorraxdu aad u kululayd iyo lugtii badnayd aan soo lugaynin mooji waxay tahay laakiin qorraxdu aad u kulushahay maanta maxamedow way kulushahay maanta laakiin waxay u kulushahay kolley
maalinta jimcuhuna maalmaha kale way oo maalmaha kale way ka kulul yihiin sababtay u kulul yihiin maalinta jimcuhu daniyow inagu garan mayno laakiin jimcaha oo kale dhulku inta badan waa dhaag oo dabayli ma jirto oo waa kulayl marka maanta aad bay u kulushahay kulayl baan ku soo beegnay roobna sida kale kamuu deyin oo ma naga arkayno roob muu helin weli laakiin buurtu waa iska cagaar laakiin buurtu waa cagaarkaasi waa doogaa marka kusoo dhawaada baan leenahay saaxiibadeen waay asalaamu calaykum calaykum assalaam muuse xasan guuleed waa oday deegaankan ka soo jeeda lafaruug isla markaana siduu noo sheegay halkan ku dhashay muuse xasan guuleed oo ku soo dhawow janaalkan maanta aan kaa wareysanayo cadceed vlogs la yidhaahdo bal ka warran deegaanka iyo xaaladiisa guud roobabkii da'ay iyo bal ka warran horta ilaahay mahadi weeyaan nimcaan ku jirnaa ilaahay waa wax lagu mahadnaqaa deegaankan aan ka dhashay ninkan beero kula baan hayo intaa degan dooxan beerahay waxay ku cabaan biyaha soo durdura ayaa taga beertayda galaalkaasoo dabiiciyan ilaa intan iyo maalintan ku dhashay aan ku garaasaday waxaan kaa socolaya ayaa taga beertayda maasha allah waan ku cabaa imsi jir ma tahay waxaan hayd dhowr iyo konton jir intaa baalkan baa deganay intaa baalkaasaan deganaa maraan magaalada yar galaan kasoo noqday intii dee barakici faqashtan ka yar yacni mooyaane markaan ka yacni bartanu baan ka tegey markii dambe hadda tacabkaygu maan kusoo noqdonaya beeraha iyo beeralaya markaa beeraha maxaad ka beertaa kaaga baxa beeraha waxaa kasoo baxa qudrad badan baa kasoo baxa dee kulba dee cagafyama hayne waa nin gacantii iyo biyahaasunbu ilaahay nagula qabto dee adigu laguma qado markaa waxa beerta ka soo go'ay aad beertaada kala soo baxda ma kaga maarmi kartaa waxyaabaha magaalada laga keeno ama dibaddaba laga soo dejiyo haddii aan imika waan kaga maarmi karaa horta 3 bilood oo calaxaalay waan kaga maarmi karaa haye oo digirtaan beeray iyo galleydii aan beeray haddii aan isticmaalo lahaa kadib waxba kama soo degin muddo 3 bilood waan ku raajicin karnaa ku noolaan kartaa ku noolaan karaa iyo dee family iyo laba family waan qaadi karnaa waan gartay laakiin intaa hadday sii dhaafto dalaga aad beertaada kala soo baxday aad ka soo goosato xageebad u iibgeysaa inta badan berbera iyo burco inaanan adigu dadku way isku daba nool yihiin annaga hablaha noo yimaado naga iibsada way sii iyaguna wakiilada sii samaystaan waa la iska sii daba macaashaya marka annagu waxa uma dirna saacaddaa beerta waxaan u danaynaa dadkaoo waqti adag baa lagu jira xusnaa haleed ka daba shaayo dadka noo yimaado dumar baa deemka waddanka dhex carra carruur korleedii markaa dumarkaas aan ilaahay dartiintaan uga iibino ayaanu nahay idinka magaalada kasi macaashoo damiir ku cawalaysaan xoolaha iyaga ma dhaqataan xoolaha adigu neef yaroo beerta ku dhex xidhan mooyaane inta badan xoolaha idinku beeraley baa tihiin ma eegno ka udhidi weydiinaya biyahan durduraya badan ee aad arkaysaan dhulka qaar male xayo ku leeyihin dhulka qaar ma laha idinku dhulka hawdka oo kale imika beeraha laga beero oo kale wax soo saar badan baa laga soo saaraa waa roob maadaama idinku haysataan biyaha sidaa u durduraya ee badan ee soconaya maxaa wax intan ka badan waxaan wax dalag intan ka badan maxaa u soo saari weydeen tacabkiina u muujin waxa koosgareeyey kalaamadka wax la yidhaahdo waxa kalaamadka la yidhaahdo ayaa koosgareeyey qolan roobka ku cabaysa hawdka taagani kalaamad baa haystaa ciid waxay haystaan qabow cadceed kuma markaan ciiddeenna way ka macdan badan tahay marka ilaahay suu kan dari maayo ciid wanaagsan iyo biyo wanaagsan marka iyaga ilaahay ciiddii buu siiyey iyo qabow marka iyaga waxooda waa roob annagana ilaahay wuxuuna siiyey biyaha iyo cadceedda iska aan dalagii yaryar oo dhan aanu bixi karin badda diragsa midda kale haddii dhaqaalo badan aanu hayn lahayn ama wax iskaashi la samayn lahaa ama wax qabad dalag kaa ka badan iyo 4 saacadood ka badan baa soo bixi lahaa laakiin in aan dhaqaalo badanna hayn wuxuu cagafyana aan hayn cimiladina aanay saamaxayn gacantiisa madarqaya iyo masta waxaa waa mucjisaantu danihiisa reerkiisa amba nolol maalmeed kula soo baxay laakiin hadduu awood hayn lahaa dee waxay wax ka badan buu soo saari lahaa laakiin nin yomba khadaysta muxuu soo saari waxba cammi imika caws baad dhakada ku sidaa xoolana ma dhaqda baa tidhi cawskan beertaadaad ka soo gurtay beertaydaan ka soo guray xaggeed u sidaa waxaan u sidaa qolo agoonoo halkaasoo 2 laxaad ka dhasho agoona ayaan ilaahay dartii ugu sidaan isleeyahay agoontii yaradaydu ugu xidhnaayeen aad ku agtuurtay maasha allah oo si naxariisanaysa ilaahayna samadayda ka naxariisan ilaah baa saa igu oge agoon baan u sidaan isleeyahay asiisid habar maasha allah allah ku barakeeyo waa maalin jimcaha ku duceeyo